السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxay ahayd sanadka 2017 markii ugu horeysay internetka ku faafiyay koorso aan ku sharxayo barnaamijkan Excel. koorsadani waa mid dib u habeen ah waxaana ku guuleysay in tobanee ardaydeeda ah aan ku tababaro waqtigii koronaha uu jiray iyagoo feedback wanaagsan uu ka soo laabtay. haddaadan aqoon waxa uu yahay barnaamijka Excel waa barnaamij xisaabeed ay ugu caansan adduunyadani ay soo saartay shirkadda Microsoft. waxaa loo adeegsadaa barnaamijkani haddaad rabto inaad dejisato miisaaniyad goobaha ganacsiga, shirkadaha iyo iskuulada, ama inaad ku xisaabiso darajooyinka ardaydaada, ama aad ku xifdisato mishaaraadka shaqaalahaada, ama aad rabto inaad jadwal u samayso xogtaada, iyo hadda waxa u adeegsan kartaa inaad ku xaliso xisaabaad horumarsan. koorsadani waa mid bilow ah waxaan ka bilaabaynaa from 0 ilaa wax isla soo gaarina heer dhexe, iyadoo koorsada aan u kala qaybinay cutubyo kana sii kooban 10. kadib waxaan ku sii lifaaqnay imtixaano tijaabo ah iyo waajibaad ardayga loo dirayo inuu soo qabto. waxa xusid mudan waxaan ku soo lifaaqnay koorsadani buug ay afoogi ku diyaarisay casharada kala socon karto. taasna ardayga waxay ka kaalmeynay inuu marjac u helo koorsada markaas uu baranayo. waxaana awood u yeelinay hadda koorsadani dhamayso in aqoon dheeri ah u hesho sida uu isticmaal lahayd wajigiisa guud ahaan ee barnaamijka. waxaana faham ka heli doontaa sida uu isticmaal lahayd una kala bixin lahayd tiirarkiisa iyo safafkiisa iyo sidoo kale unugyadiisa, iyo sida uu isticmaal lahayd worksheetkiisa, iyo sida uu qaabeen lahayd ama u habeen lahayd, iyo sida uu kala dhigdhigi lahayd. sidoo kale waxaan isla meel dhigeynaa habka markaas u maamul lahayd datadaada. ugu dambeyn waxaan ku siin asaaska sida uu isticmaal lahayd macadalaadkiisa iyo daalooyinkiisa. waxaa la dhahaa Salman Maado, waxaan ahay bara jaamacadeed wax ka dhiga jaamacadaha dalka ku yaala. waxayna ii tahay sharaf inaan noqdo bariye xirfadaan ku kordhin lahay noloshaada. ku soo bir koorsadani adigoo iska diiwaan gelinayo noloshaada.